waxaa la yiri ninkii abaarta ataqaani arankiina as aragtiin ma fiicno marka Sheekh Shariif inuu xasan Sheekh meeshan xasuusiyo ma fiicnayn kulankan oo isugu yimaadeen inta badan siyaasiyiinta foolaadka ah mucaaradka dalka oo ay ugu horeeyaan madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed رئيس الوزراء هوري محمد حسين روبلي حسن على خير عمر عبد الرشيد عبدي فارح شردون سعيد ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin iyo miisaan dalka kale iyada oo sidoo kale ay kulanka goobjoog ahaayeen qaar kamid ah xildhibaanada mucaaradka kulanka ayaa ugu horeyn waxaa daahfuray madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed isaga oo warbaahinta la wadaagay ajandayaasha shirkan iyo qodobada ay muhiim ka tahay in laga hadlo si loo badbaadiyo dowladnimada Soomaaliya oo sheegay in ay haadaan ka sii dhacayso marka waxa la rabaa laba arrin oo muhiim ah in laga shaqeeyo midda koowaad waxa waaye doorasho maxaa lagu wada gali karaa heshiis lagu yahay midda labaad waxa waaye shabaab iyo alqaacida si wada dirna labadaas hawlada ayaa noo taala طبعا hawla intaas ka badan jira laakiin waxaan aaminsanahay labadaas inay ugu muhiimsan yihiin hadday ogoshahay dawladdu inay miiska soo fariisto oo wixii ay halayso lagala hadlo dastuurka ugu horeeya dastuurka haddii laga heshiiyo waxa kale waa fududii waxa kale oo dhan dastuurka ka dambeeyaan marka dastuurka haddii laga heshiiyo waxa kale waa fududii ama in la aado doorasho one vote intaasi kadib waxa iyaguna munaasabada ka hadlay qaar kamid ah xildhibaanada iyo senatarada baarlamaanka dalka iyaga oo taageeray kulankan isla markaana siyaasiyiinta mucaaradka ku dhiirigeliyay inay sii wadaan joogteynta kulamada caynkan oo kala ah si madaxweyne xasan sheekh maxamuud gacmaha looga qabto maadaama sida ay sheegeen uu dalka ku wado meel halisa intaas oo isuwan waxay horseedeen in jamhuuriyaddii saddexaad ee dawlad dhiska Soomaaliya curyaanto la kala irdhoobo shacabkuna sii kala fogaado qarannimadiina ay baylaha noqoto taxanaha aan soo sheegay waxay bulshada ku abuureen walwaliye walaac iba furna u noqday shakil la soo dersay bulshaweynta Soomaaliyeed su'aalaha ka dhex guuxayana ay kow ka yihiin sidee looga badbaadiyaa cawaaqib xumada xukuumaddan 3 sano u dambeysay ummadda Soomaaliyeed in guddi doorasho aad kaliya samaysato oo ardadii iskuulada dugsiyo sare dugsiyo dhexe jaamacado qasab la yiraahdo waa lagu diiwaan gelinayaa haddana aad tiraahdo dimuqraadiyad baan ka shaqeynayaa isma qabanayse isbarbar dhig baarlamaankii 11aad aan anagu qaybta ka